السلام عليكم سؤال هذا ما أنت وحرنا أنا كهذا لنا سيد ميزان كلو يريو أديكو آدن جيم هذا برونتي وأدك تهاي إن ميزان كأسكت دينتي runtii aad ay u adag tahay laakiin waxaan ku soo qaadan doonaa qodobo research lagu sameeyay oo muhiim u ah inaad iscaadeysid haddaba inta qodobada ku sheegin qodob kuwaad arag inaad ku sheega waxay tahay kow haddii aad inaad iscaadeysid waa inaad qaadataa go'aan okay haddii aadan qaadanin go'aan macnaheedu waxay tahay ma wadi kartid ama ma wadi doontid go'aankii ama maxaa la yiraahdaa inaad bilaawdid miisaanka inaad dhintid haddaba wax ugu horeeya rabo inaad samaysid waxay tahay inaad go'aan qaadatid in miisaankaaga aad dhintid sababtoo mar kasto aad go'aan qaadatid inaad iska bedeshid sidaa tahay iskuna bedeshid si kale runtii go'aankaaga waxa laga yaabaa inuu ahaado mid sax ah haddaba lambarka koowaad aan rabo inaan kuu sheega waxay tahay oo research badan lagu sameeyay cadeynayaan dadka inta badan iscaateeyay waa in aad iska yareysaa cuntooyinka la yiraahdo carbohydrateska okay cuntooyinka runtii carbohydrateska oo cuntooyinka inta badan anaga aan isticmaalno ee ka mid yihiin bariiska baastada maxaa la yiraahdaa canjeerada waxyaabahaas oo dhan soo research badan oo la sameeyay waxay cadeynayaan dadka inta badan iscaateeyay adduunka inay inta badan yareeyaan cunitaanka carbohydrateska cuntooyinka la yiraahdo haddaba cuntooyinkaas hadaa yareysid maxaa xiga marka ama maxaa cuni doontaa waxaa badsan doontaa cuntooyinka la yiraahdo proteiniska okay cuntooyinka la yiraahdo proteiniska oo ay ka mid yihiin ukunta malayga digirta waxyaabahaas oo inaad badsatid okay ayaga waxay jirkaaga ka caawinayaan inuu soo qurux badnaado stepka labaad oo muhiim ah waxay tahay inaad badsatid cuntooyinka la yiraahdo fruitska okay cuntooyinka fruitska sababtoo ah cuntooyinka fruitska waxa ku badan biyaha ayaa ku badan ama fruita ku badan soo marka jirkaaga muhiim ay u yahay markasta cuntooyinkaas fruitka jirkaaga ay caawinayaan sidoo kale lambarka saddexaad oo asina muhiim ah oo inta badan dadka iscaateeyay ay sameeyaan waxay tahay exercise okay macnaheed maaha exercise-ka gym-ka loo aado laakiin waxay tahay inaad sameysid exercise haddaba exercise-ka rabo inaad sameysid muxuu yahay exercise-ka rabo inaad sameeyo waxay tahay haddii aad tahay nin rag waa subaxdii inaad sameysaa almiito inaad baxdid xaafadaada ilaa ay intaa socon kartid inaad socotid okay mar kastoo aad isku daydid inaad socod badisid oo mar kastoo miisaankaaga uu hoos u dhumo sidoo kale haddii aad tahay gabar aadan banaanka aadi karin waxaad samayn kartaa gurigaaga inaad ku laalaabatid maalintii okay inaad ku laalaabatid kadibna maxaa la yiraahdaa waxay la mid tahay adigoo banaanka aaday oo waqti badan socday haddaba dadka inta badan iscaateeyay labadaas shay ay aad ugu dadaali jireen okay qodobka kale aan rabo inaad asina muhiim tahay aan rabo inaad kula wadaagaa waxay tahay waa inaad samaysataa jadwal inaad samaysataa okay jadwalka wuxuu kaa caawin doonaa in go'aankii aad qaadatid uu kuu hirgalay okay soo marka maxaa samayn doontaa waxyaabihii aan kuu soo sheegay ayaa meel ku qoran doontaa maalin kasta waxaa samaynaysid waqtiga kacaysid waqtiga maxaa la yiraahdaa almiitada aadaysid cuntooyinka cunaysid cuntooyinka iska dhaafaysid intaba inaad jadwal garaysataa hadhow waxay kuu sahli doontaa go'aanka aad qaadatay inuu noqdo mid miro dhal ah haddaba waxaan hubaa intaas istaabay haddaa aad samaysid in maxaa la yiraahdaa noloshaada isbedel weyn aad ku samayn doontid iskana bedeli doontid sida hadda aad tahay iskuna bedeli doontid sida aad rabtid inaad noqotid insha Allah harjayna wax badan inaan ka faa'iiday haddii aad channelka cusub tahayna fadlan subscribe saar haddii aad horena la joogtana fadlan channelka share garay telegramkana wixii su'aalo iyo comment nagu weydiiyo aad u mahadsantihiin